aad baan ugu mahadnaqayaa madaxda gobolka iyo gobolka guud ahaan intii aanu joognay waftigan ballaaran soo dhaweyn iyo wixii hawle loo baahday iyo gobolkii oo dhammi inuu heegan yahay waftiga iyo la shaqayntiisa aad baan ka mahadnaqayaa maanta mashaariicda aanu soo furray ee inta badan gobolku ama wasaaraduhu iyagu ay dhisteen badankooda oo inta badan wasaaraddu iskooda u dhisteena aad baan ku mahadnaqayaa dadaalka aad gobol ahaan heerka wasaaradaha iyo maamulka gobolku uu ku dadaalayo inuu dhismo hay-adihii dowladda ee gobolku ee wasaaraduhu maanta gobolka Sanaag iyo Somalilandba mashaariicda ay fulinayso iyo hawlaha ay bilaabaysaa waa bilow jaamacadeennu waa bilow magaalooyinkeennu waa bilow waxaanu doonaynaa inay noqoto Somaliland dalalka adduunka ugu horumarsan inay muddo ku gaadho oo maskaxda gaarsiiyo qofka bani aadmiga hadba hankiisa intuu gaarsiiyo iyo dal waliba ayuu gaadhaa haddaynu nahay dadka maanta jooga maamulka haya waliba qoladiina da'da yar haddaydaan meel fog eegin oo aydan dadka dalku dhibaato ku jiro ka gudbinin oo idaan u adkaysan halkaas ma fadhiyana deewaana u dhigma kartaa haddaynu ku doonayno Sanaag imisa aqoon beelad Sanaag imisa taajir beelad Sanaag imisa nin oo wax qaban karo wax dhis kara ilaa Sanaag imisa nin oo ilaahay aqli iyo xikmad ilaa hadday intaasi mustaqbalka carruurtooda isugu tagto oo aynu doonayno jaamacad wanaagsan oo tacliinku waa la sibixaysa oo tira dalka mustaqbalka wax u filan ay isu kaashato dawladda iyo Soomaaliland oo dhammaan way ku caawinaysaa way garab qabanaysaa inta keentaan in laga wada keenay Sanaag jaamacad fooqaqa oo qurux badan oo macallimiin taraale oo qurunta oo duuxoodu soo bixiyo reer Sanaag way sameyn karaa waliba gobolada kalena way caawin karaan qaarkood waxaan ku baraarujinayaa horta inaan fariinta gaarsiino reer Sanaag meel ay joogaan dawladda dhexe iyo gobolada kale waliba way caawinayaan diyaar baan gobol walba waa kaas u tashada gobol waliba waa inuu saabila jaamacadda Amuud oo warsa jaamacada laakiin ninka hogaamiyay odaashii asaasi waxay ku bilaabeen inay yiraahdaan Amuud boorama dhisanaysa boorama isku kaasho dabeetana intii ay hayeen isu geeyeen dabeetana bilowgood iyo fikradda waxay gaarsiisay inay 80% Soomaaliland jaamacadda Amuud dhisto ilaa Sanaag wax ku dartay markii la bilaabay marka hadii la yiraahdo codkiina waa tixgelina mudaantkooda waa siirana intii suurtagal ah laakiin jaamacadda aanu gurmano gobolka mayorkii iyo gudoomiye gobolka waa reer Sanaag ka ariga raaca iyo ka taajirka ah iyo ka aqoonyahanka
iyo ka jooga meel kasta oo dibadda waynu howlgalnaa waxa la jaamacadan waa mustaqbalkii halkaas ku dhasay hala dhiso aad